صومالي يا ودني تو ناس واحد وياكي وعندنا يفرد دورته وعندنا إن تلقي يتباعه شباب اختكم ورا ماضي وعي لا يا وزير يمرح وين رئيس وزراء ودك وحاكم مقام كرو وانا بس كاشنا وانا قسم الشعوب لسادة لهم الحقوق وآخرين هم العبيد يا عالمين dhibaatadan maaha dhibaato dawlad kaliya loogu dan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ayaa loo soo dhigtay shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan oo iska qabtaan masiibada ku dhex jirto kollay maalin baa dhimo laheene aan xoo hayto isdifaacno يا عالمي يا من تدور تبارك الطغيان في القدس الجريح وتبث من سوريا المذابح ثم تغفو تستريح وبمصر تهدي الغاصبين مصارع الوطن الذبيح فلا يبلغ من هذا فعزل إذا أبيت ضايقني أو تذكرني أو ينسكني أو هلكني أو أولادي يا عالمي من أرخص الدم في العراق لكي يراق من بعثر اليمن السعيد على متاهات الفراق من أشعل الأيام في ليبيا جحيما لا يطاق يا عالمي حتى إن أنا قلت كتبنا والله مسعين ودمنا ودول ولا الكتبين وبهر دور عودنا وديك قطنا لكن أنت قلني ما كنت ملهد قبلي ما كنت هاي كاشو أنا يروي هذا جهاد دون إنسان وجهاد دون تهين صنعان دن لقو جهاد واجرا لكن شعب كي دل يرو بان سوق الجبين إلا باتن لقو صوتيري تعبيلي دل يرو اسمعان كبل لقو جهاد ولا الصوم يستلعب والله لقو جهاد حر سعيد ودموع مظلوم يهان sida aragtaan qof kale oo hor leh ayaa midkiisa la helay sida la ii sheeg hadda qofkan muuqaalkiisa ma garan karno laakiin dadka qaar waxay leeyihiin waa dumar wuxuu ka mid yahay dadkii shalay qaraxan ku dhintay dhulka hoostiisa ku jira dhismahana ku soo dumay halkan sida la ii sheeg waxay ahayd meel dhismo sare oo dabaq ah laba qofood oo horey ayaa halkan laga helay waa qofkii saddexaad oo halkan ku jiro lama oga tirada rasmiga ah halkan ku jirto laakiin ilaa hadda ciidamada iyo dadka kala duwan halkan ku sugan gurmad ay ku jiraan oo aanay ka mid ah qof nool oo caafimaad qabo oo naqaska ku dhagay oo dhul hoostiisa ku jira ayaa saacado ka hor laga soo saaray markaasuu inta qufacay uu istaagay ayuu yidhi taleefankayga awreerkayga wacna soo farxad ma taas inta aan ka gaarayna ilaa qofka ugu dambeeya aan ka soo helayno dadaalka waa sii wadeennaa waxaa nagu dhiirigelisaan inaad meydka xurmaysaan waxaa nagu dhiirigelisaan inaad deriska qalbiga u qaboojisaan waxaa nagu dhiirigelisaan inaad amniga u heelisaan يا من تدور تبارك الطغيان في القدس الجريح وتبث من سوريا المذابح ثم تغفو تستريح وبمصر تهدي الغاصبين مصارع